maxaa ka dhacay shirka uga soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim shirka waxaan uga soo baxay saad wadaagtiin anu waxaan gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani waxaan ka mid ahaa aasaasayaasha xisbiga wadani waxaan ka mid ahaa labadii nin ugu horreeyey xisbiga wadani labadii nin ugu horreeyey baan ahay xisbigan aasaasay aniga ciro runtii maanta waxaan ku dadaalayey inaan doorasho xor oo xalaal galo oo aan muddo badan u soo halgamaynay hoolkii markii aan galnay waxaa la yidhi musharax madaxweynaha loo codaynaya cabdiraxmaan ciro dee guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani baan ahaa anigu waxaan ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad xisbigan ahaa markuu cabdiraxmaan marka gudoomiyaha cod gacanta loo taago aniga waxayd gudoomiye ku-xigeenkii koowaad haddaan ahay in anigana gacanta lai taago dabeedna anigu codka dimuqraadiga halkaa ka sugayey dabeedna waxaa laiga horraysiiyey ninkii la daba socday oo isagu aanan xisbigana ka mid ah aasaasan ahayn oo guddoomiye hoosta ku haystay buu la soo baxay dabeedna aan saasaa shirka kaga soo baxay cadaalad darradii aan ka baqaynay ee intaasoo muddadii aan xisbiga ku soo jiray lahaa cadaalad darraa ka socota in cabdiraxmaan difaacayey halkaasay maanta ka dhacday cadaalad darradii ugu weyn baa xisbiga ka dhacday waxaan ugu sheegay taageerayaashaydii oo 181 kaararkii baa loo diiday dabadday taagan yihiin sidaa darteed waxa halkaa ka soo baxay waa wax khayr sharci ah waa cadaalad darro waa cirana wuxuu ku tallaabsaday cadaalad darradii Soomaaliland ugu weyneyd 5 sanaan xisbigan ku soo halgamayey 5 sanaan mucaarad ahaa 5 sanaan mucaaradkan dhiigayga u shubay maanta waxa la igu bedelay nin aanan taageero iyo cod gobolka awda ka soo hoynin waxaan ballan qaadayaa waa inoo booramayo wadani